warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal xalay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo al-shabaab ku dhexmaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdiqaadir Jakarta ayaa warkan inoo haya. Dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu xalay ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururka dagaalamayaasha al-shabaab degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka dowladda ku leeyihiin degmadaasi Afgooye lagana ilaaliyo magaaladaas waxaana halkaas ka dhacay dagaal socda in ka badan hal saacadood sida ay sheegeen dadka ku nool degmadaasi Afgooye waxa ay sheegeen dadkaasi inuu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray dadkaasi qaarkoodna ay yihiin dad shacab ah oo dhaawac ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo xalay si weyn looga dareemay degmadaasi inkastoo dadka shacabka ay sheegayaan inay saacadeyn karin tirada inta ay la eg tahay ee dadka waxyeelada ay ka soo gaartay dagaalkaas saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab isla markaana khasaare ay ku gaarsiiyeen dagaalkii halkaas ka dhacay si hadalka u dhigeen waxa ay saraakiishu sheegeen in saaka ay wadaan howlgallo iyo dhaqaaqo ciidan oo ay ku doonayaan ama ay ku baadagoobayaan xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee weerar ku qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan fariisinka dhanka waqooyi ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ay ka ilaaliyaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaray degmadaas ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana isu socodka dadka iyo goobaha ganacsiga ay si caadi ah u shaqeynayaan hayeeshe ee barbar socdaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ee halkaas ku sugan ee wada dhaqaaqo ciidan iyo howlgallo kala duwan oo ay ku baadiyoobayaan xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee weerar ku qaaday degmadaasi maamulka degmada Afgooye iyo saraakiisha ciidamada degmadaas wali wax faahfaahin ah dhankooda kama aysan bixin dagaalka xalay ku dhexmaray degmadaasi Afgooye ciidamada dowladda Soomaaliya ee kuwa al-shabaab waxaana xusid mudan inaysan ahayn markii ugu horeysay oo degmada Afgooye uu dagaal ka dhaco waxaana tiro dhowr jeer ah hore u soo weeraray xubno ka tirsan ururka al-shabaab iyo waliba sidoo kale halkaas uu dagaal ku dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmadaasi ku sugan waxaana jirta in khasaare kala duwan ee dadka shacabka ay ka soo gaaraan dagaalada inta badan ka dhaca deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Hoose. dhinaca kale Mareykanka waxa uu sheegay in duqeyn uu ka fuliyay gobolka Shabeellaha Hoose uu ka dilay xubin ka tirsan ururka al-shabaab kuwa kalena uu ku dhaawacay warkan Cali Xasan ayaa inoo haya. war-saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeymo dhinaca cirka ah oo Mareykanka uu ka fuliyay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ee shalay oo ku beegneyd 2 bishii 3 2020 ee laba duqeyn oo dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Kunyo Baro ee gobolka Shabeellaha Hoose. weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inuu ku dilay xubin ka tirsan al-shabaab laba kalena ay ku dhaawaceen isla markaana ay ku taageerayeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab sida uu sheegay taliyaha ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay qiimeyn iyo baaritaan ay ku sameynayaan inay dad rayid ah ku dhinteen duqeymaha ay ka fuliyeen deegaanka Kunyo Baro ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka ah al-shabaab. Mareykanka ayaa sanadkan 2020 waxa uu kordhiyay duqeymaha dhinaca cirka ah ee uu la beegsanayo xubnaha ka tirsan al-shabaab waxaana muddo bil ah gudaheed uu fuliyay in ka badan 10 weerar oo dhinaca cirka ah. xaaladda magaalada Balad Xaawo ayaa saaka degan iyadoo wararka aynu ka helino magaaladaasina ay sheegayaan inay dib u soo laabanayaan qaar ka mid ah dadkii ka barakacay dagaalkii shalay ka dhacay xadka u dhaxeeya magaalada Mandera ee waqooyi bari ee dalka Kenya iyo degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kaas oo u dhaxeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya ee dhawaan geysay degmadaasi iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland oo iyaguna dhawaan lagu soo daadgureeyay halka la yiraahdo BB1 oo u dhaxeysa magaalooyinka Balad Xaawo iyo Mandera. dadka deegaanka ayaa ka barakacay shalay xaafadahooda kadib markii madaafiic ay ku hoobatay magaalada Balad Xaawo. ciidanka dowladda Soomaaliya oo shalay barqadii weerar ku qaaday saldhigyo ay ciidanka Jubbaland ku leeyihiin deegaankaasi BB1 ayaa waxaa kadib xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac waxaana markii dambe ciidankii Jubbaland ay gudaha u galeen magaalada Mandera iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay dib ugu soo laabteen fariisimihii ay markii hore weerarka ka qaadeen.
dagaalkii shalay ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 5 ruux oo labada dhinac ee dagaalamay ah halka 15 kalena oo shacab u badnaa ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la geeyay cisbitaalada degmada Doolow iyo sidoo kale oo ka tirsan gobolka Gado iyo magaalada Mandera ee waqooyi bari ee dalka Kenya. sidoo kale dagaalka inta uu socday waxaa madaafiic la sheegay inay ku dhacday xaafado kamid ah magaalada Balad Xaawo iyadoo la arkay guryo gubanayay taasoo sababtay in badi dadka xaafadaha madaafiicda ay ku hoobanayeen ay ka barakacaan guryahooda. qaar ayaa si ku meel gaar ah u degan magaalada Mandera ee gudaha wadanka Kenya. qaar kamid ah dadka deegaanka oo saake aan la hadalnay waxay sheegeen in ay soo badanayaan dadka dib ugu soo laabanayo guryahooda iyadoo qoysas badan ay dib u soo laabteen kadib markii saraakiisha iyo maamulka dowladda ee degmada Balad Xaawo ee dagaalkii shalay hogaaminaya ay sheegeen xaaladdu ay degan tahay samarkaana aanay jirin dagaal la faray in ay ku qaadaan dowladda Kenya maadaama ciidankii ay la dagaalamayeen ay gudaha u galeen wadanka Kenya samarkaana ay dib ugu soo laabteen saldhigyadooda. xaaladuna ay tahay mid degan. dhinaceeda Jubbaland waxa ay sheegaysaa in weli fariisimahooda ay ku sugan yihiin inkastoo ila madax bannaan iyo muuqaalo laga soo qabtay goobta dagaalka ay muujinayaan in halkii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka hadashay dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa Jubbaland. war kooban oo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto uu ku qoray bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka waxa uu uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Balad Xaawo duleedkeeda waxaana uu sheegay inuu ahaa dagaal aad u culus oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka. dowladda dhawaan ciidamadii ay geysay iyo kuwa maamulka Jubbaland oo iyaguna maalmihii u dambeeyay lagu soo daadgureynayay halkaas horena looga digayay in dagaal uu dhex mari karo ayaa dagaalkaasi u sabab ahaa. qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay dhinacyada ku dagaalamay Balad Xaawo in ay dagaalka joojiyaan wax walbana ay ku dhameeyaan miiska wada hadalka. Donald Yamamoto ayaa yiri waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan iska horimaad hubeysan oo mar kale ka dhaca Balad Xaawo. waxaan ku baaqaynaa in xal nabadeed laga gaaro khilaafka u dhaxeeya labada dhinac. ugu dambeyn Mareykanka ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dhammaan inay muujiyaan dulqaadkaas oo ay danta ugu jirto ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi. dagaalkii shalay ka dhacay Balad Xaawo ee u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ayaa saameyntii uu sabab uusan ku ekaan dadka ku sugan Balad Xaawo ee waxaa jira barakac laga sameeyo gudaha Kenya si gaar ah dhinaca Mandera xadka uu la wadaago dhinaca magaalada Mandera xadka ay la wadaagto magaalada Balad Xaawo taas oo madaafiic habow ah ay guryahooda ugu tagayeen dadka qaar waxaana jira dad ku dhaawacmay Mandera gudaheeda oo iyaguna lagu dabiibay isbitaal ku yaala magaaladaasi. wixii ka soo kordha Balad Xaawo iyo sida dib ay dadka ugu soo laabanayaan guryahooda wararkeena dambe iyo radiosala.com ayaad kala socon doontaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho ay hoos u dhigeen dakhligii maamulka gobolka Banaadir. Maxamed Bootan ayaa warkan inoo hayo. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo soo hadal qaaday dhagaxaanta wadooyin badan oo magaalada Muqdisho kamid ah oo dowladda ay goosay isla markaana loogu leeyahay in lagu hortago weerarada ka imaanaya ururka Al-Shabaab. wuxuuna sheegay gudoomiyaha in wadooyinkan ay saldhigeen dakhligii ka soo xaroo jiray gobolka Banaadir hoos u dhac uu ku yimaado. xilli guur ah oo ku soo aaday lafteeda challenge-geeda ay leedahay kala daadashadii gobolka soo gaartay lagu daray xilliga kala guurka lagu sii daray jidadka xiran oo xilliyadaas hore aan xirnaa jirin intuba hoose u dhimeen oo sababaha dib u dhaca qayb ay ka tahay. degmooyinka u furan baadiyaha milisho beelood ayaa iyagana weerar baan ku hay wada ogtihiin. kuwa hadda gudaha kusoo jira dhaqaala macnaa lagama qaabo ayaga lacagta ku baxda hadaa kama timaado. Shingani waa tana Shingani dakhligeedu macnaha kuma filna waa degmooyinka la kabi doonay kamid yihiin. dhiirigelinaan samaynay kale waad ogtihiin oo degmooyinka waxaan dhahnay dakhliga ka imaana degmada 30% ayadaa lagu horumariyaa lagu celiyo.
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa hore u sheegay in wadooyinka xiran dib loo furi doono laakiin hadalkaasi ayaa dad badan waxay u fasirteen mid iska sheeg ah oo dadka laabta ugu qaboojinayay wasiirka maadaama ilaa hadda aysan dhicin. waxaa sii kordhaya walaaca caalamka uu ka qabo faafitaanka cudurka coronavirus oo la sheegayo in dalal hor leh uu gaarayo iyada oo digniino iyo warbixino dheeraad ah ay soo saarayaan hay-adaha caafimaadka ee dalalka qaar uu gaaray cudurkaasi iyo sidoo kale hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. wararka waxa ay sheegayaan in kiisas hor leh laga helay qaar ka mid ah dalalka Yurub sida wadanka Netherland oo shirkad ganacsi laga helay qof qaba caabuqaasi iyada oo gabi ahaanba shirkadaasi albaabada loo laabay xarunteeda ku taala waa xarunteeda goobta uu qofkaasi ku sugan yahay waxaana la faray in dhammaan shaqaalaha la karantiilo si loo hubiyo kuwa qaba iyo kuwan qabin. dowladda Mareykanka ayaa dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinaysa sida wadankeedu uusan ugu sii faafi lahayn cudurkaasi maadaama kiisas laga helay qaar ka mid ah magaalooyinka wadankaas haba ugu badnaato